soo dhawaada dhammaantiin dhalinyarada aanu ku saaxiibnay gudaha janaalka Mahaqulaso. Maanta waxaa idiin qolansan doonaa musalsalka Saaro qaybta shanaad ilaa qaybta sagaalaad fiidiyowga Laaksa. Qaybta shanaad waxay ku bilaabanaysaa iyada Anika oo la hadlaysa Muhaag oo jooga tuulada ee joogta Saaro. Kor ayuuna wuxuu ka fiirsanayaa Saaro oo la guddoonsiinayo koobka tuulada oo ku guuleystay kabadhiga koobka tuulada. Gadaasheeda waxaa ka imaanaysa hooyada Saaro wayna jiidaysaa Saaro ayadoo ku canaananaysa soo kuma dhihin mar dambe ciyaartaan hadheelin. Waxaan ogaanaynaa inay goobta ku sugan tahay Anika hooyadeeda. Arrinta waxaa loo sheegaa iyada Anika aad ayay ugu farxaysaa in lagu diiday Saaro koobka inay qaado. Anika ayaa kor imaanaysa dabka waxayna xasuusanaysaa xasuusiisa dhexmara ayada iyo Saaro xilliga ay joogto tuulada. Waxayna bilaabaysaa inay gacanteeda u dhigto dabka laakiin gadaasheeda waxaa ka imaanaya iyada Anika. Dhanka kale waxaa arkaynaa Saaro oo hooyadeeda ka codsanaysa inay aado magaalada weyn ee Bombay laakiin hooyada waxay ugu sheekaynaysaa inay meeshaas deganaa jireen laakiin ay kasoo buriyeen qoyska Anika. Isla habeenka Saaro ayaa waxay ka dhuuminaysaa hooyada oo hurda waxaana hor u wadaya aabaheeda. Subax ayaa hooyada waxaa kasoo kicinaya cid deriska hurdada waxayna u sheegaya in gabadheedii ay baxday aan u socoto Bombay. Dhanka kale waxaa arnaa Saaro iyo saaxiibteeda Faala oo kasii baxaya tuulada waxaana macsalaamaynaya Saaro aabaheeda iyo walaalka Faala. Waxayna kusoo degayaan garoomada ugu waaweyn Bombay ayagoo hal qof ka aqoon. Markaas Faith ay waxa u soo dhacay lambar asagoo fadhiya miiska quraacda ee qoyska. Naagtan ayaa waxay soo diraysaa shaqaalaha guriga waxay leedahay mobaylka qaad intuu soo qaban wana ka qaada waxaana gelinaya jeebka wuxuu leeyahay iska raaxayso tibu quraac waxaan isdhibin. Haddana waxaa arkaynaa Saaro iyo Faala oo dhex wareegaya laamiyaasha magaalada Bombay. Waxayna la yaabayaan dadka dhan oo ku wada mashquulsan moobil waxayna imanayaan meelshaha laga cabo waxay leeyihiin hal koob shaah meeqa wuxuu leeyahay waa 10 rubi laakiin way la yaabay wuxuu leeyahay wixina waa qaali. Isla markii waxay iibsanayaan buskud waxayna arkayaan ay taagan meesha. Isla markaas Faala ay waxay bilaabaysaa inay eegan ku baashaasho waxayna u maleysaa ay iska caadiya laakiin hal mar weerar ayuu kusoo qaadaya waana bursanaya cabar markii ordo buskudka gacantooda ay u tuuraysaa waana ka haraya waana duceysanaysaa iyadoo aad u yaaban. Cabar kadib Saaro ayada waxay imaanaysaa jaamacadda ugu weyn magaalada Mumbai waxayna soo agmaraya waardiyaha oo hurdo waxayna gudbayaan gudaha jaamacadda. Isla markii waardiyaha hurdada kasoo kacaya waana bursanaya waana ka daba tagaya wuxuu leeyahay intay u socotiin intay imaateen maxaasadtiin maxaa u soo gasheen jaamacadda. Isla markii waxay bilaabayaan inay magacyada u sheegaan in u sharxa meesha u socdaan laakiin ma fahayn luqadooda wuxuu leeyahay maxaa ku hadlaysaan idinka minaad ugu ciyaartaan meeshaan u imaateen maxaa samaynaysaan intuu soo warqadiina. Isla markii warqadda ay kasoo bixinayaan boosada way tusayaan wuxuuna arkayaa warqadda inay ku qoran tahay ogolaashada jaamacaddan laga siiyay waxaana u fasaxa gudaha jaamacadda laakiin maalin kasta waxay ahayd maalin jaamacadda shaqaynayeen waxayna bilaabayaan inay iska fadhiistaan jaamacadda dhexdeeda. Dhan kale waxaa Naafid ayaa waxaa la siinayaa moobilka laga qaaday xilliga quraacda. Isla waqtigaas waxaa soo wacaya walaalka Faala wuxuuna u sheegayaa inay Saaro iyo Faala soo baxeen inay imaadeen magaalada Mumbai gudaheeda. Isla markaas waxaa la tusaa Saaro iyo Faala oo jiifa banaanka jaamacadda waxaana isku imaanaya dhammaan ardayda jaamacadda. Anika ayaa arkaysa Saaro oo jiifta jaamacadda banaankeeda waxayna xasuusanaysaa waqtiga ay joogtay tuulada Anika waxay ku samaysay Saaro. Markaas waxay soo qaadanaysaa cagbiya waxayna wajiga u shubaysaa Faala iyo Saaro oo jiifa banaanka jaamacadda. Hal mar Saaro ayaa indhaha soo kala qaadaysa waxayna la yaabaysaa ardayda korkeeda ku hareeraysan oo ku wada qoslaya iyadoo sidii meesha loo baaxay imaanaysa macluumaadda jaamacadda waxayna leedahay kala tag oo ka dhaqaaqa meesha. Macluumaaddan waxay soo wadaysaa Saaro iyo Faala waxayna u keenaysaa maamulaha jaamacadda wuxuuna leeyahay arday fiican ayaa tiin daawan uga imaateen tuulada soo dhawaada oo ku soo dhawaada jaamacadda si wanaagsan ayuu u soo dhaweynaya. Isla markaas waxaana arkaynaa Faith oo cararaya laamiyaasha Bombay asagoo raadinaya Saaro iyo Faala.